السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما شعب وينها صوماليات نول البوديو على ذا كتشوكتان وحلوان شعب الصوماليات حلوان دعرنا بدينا نول رنت الشاك هنا بقي عاو برنامجكم حدارية هاي حسنو اسعسل أديكم في اللذة بقارن با وحوال بابا سكول حياة هذا ذلك هي ذاتك أطريسو اسعسل برنامج كشارقرية إن شاء الله تعالى ميل دير جارسية وحسو عضوا عرقنا وحاليري nin jiifa haddaad toosiso waa un isagii waa un kii aad taqaani qof kale maaha xasan waa un xasan sheekh maxamuud waa un xasankiis xasan baraf waa un xasan baraf xasan dhiiqo waa un xasan dhiiqo waxba kama bedelayno waxba lagama bedeli karo adeerow iscasil haddaad dalka iyo dadka u naxayso oo aad u turayso iscasil ka bax kursiga ka bax waxaad dhihi jirtay dalka iyo dadkaan u turayaa ummadda soomaaliyeed baan u turayaa kida wixii waad ku fashilantay iscasil ummadda soomaaliyeed ka hor wareeg waad arkaysaa ciidankii waa kaceen shacabkii waa kaceen qof allaale iyo qof raalli kugu ah ma jiro iscasil adeerow macaanow iscasil iska casil waxaan xukun ma aha waad ku ceebowday intaadan filladaba gaarin baad ceebowday oo ceeb aad cagaha la gashay oo dhiiqa ku dhacday iscasil aniga caawa fariintan aan diraayo xasan waxaan kula talinayaa inuu iscasilo sheergareeya barnaamijka aad u sheergareeya xasanow iscasilna soo wada qora iscasil soo qora iscasil caawa ha loo qoro insha allahu tacaala ha iscasilo madaxweyne ma aha cid u ogol ma laha inta isteeb oo qalada oo uu durbo galay ayaan rabnaa inaan ka hadalno aan hadda soo daayo oo aan idiin sheego filadaba ma gaarine maba dhalane dhowrtaysan ogaa sheergareeya barnaamijka hala sheergareeyo meel dheer hala gaarsiiyo xasan caawa waxaan u haynaa xasan dhiiqow iscasil adeerow iscasil naga horwareeg ummadda soomaaliyeed ka horwareeg dalkan iyo dadkan waa deganayeen sharaf iyo karaamay ku socdeen haybad bay ku socdeen cadowgoodoo dhan baa ka baaqsaday oo ka gabaday iscasil wax kala ma hayno caawa waxaan leenahay iscasil faysal tarona waa ku salaamayaa fardowsa bintu jaamac waa ku salaamayaa bashiir cabdi fooley aad baan kuu salaamayaa sheergareeya barnaamijka hala sheergareeyo meel dheer hala gaarsiiyo xasan ha loo geeyo barnaamijkan xasan waa in loo geeyo faraha ka saara gacanta ka saara ha loo geeyo iscasil waa iga talo dalkan iyo dadkan haddaad ka naxayso oo aad u soo dagaalamaysay dalka iyo dadka inaad badbaadiso dalka iyo dadka caawa waxay dani ugu jirtaa oo uu ku badbaadaa inaad adigu iscasisho وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد يوسف واكو سلاميا هباق نور علي واكو سلاميا فارح عبدي واكو سلاميا شارقرايا دالنتا صوماليات برنامج كشارقرايا حسن وحالينا هاي اسعسل صو وذا قرأ اسعسل هلا صو قرأ حسن شيخ محمود اسعسل هلا صو قرأ حسن ديقو عبد الله واكو سلاميا ولالك ويلك مقع عربيد وطا هذه أدبا كو سلامة يا سول دواذا شارقرايا آدو شارقرايا ميل دير جارسية حسن شيخ محمود عاوها الله صوقره اسعسل نيو اسعسل وحبا كلمة يالا وحبا كو مهرم موليد عرب تراي واكو سلامة يا شارقرايا آدو شارقرايا ميل بير هلا جارسية ميل دير كور هالله قاضو كور دال كان يداد كان دفاعي ربان دالك يدادكو ميل وحي كو سعودين شرف يا كرامو يا هيبت يا له dal iyo dad sharfan oo socda oo babalaya wiilka reer aw cali waa ku salaamaya weligaaba caytan qaali muuse aad baan ku salaamaya ha loo soo qoray iscasil caawa qofna ma saarayno mucaarad maxaa la yidhahdaa nimanka la yidhaahdo ii sheeg nimanka la yidhaahdo naar iyo naxli ha ku jiraan xitaa ma saaraya caawa hala sheergareeyo aad ha loo sheergareeyo aad ha loo sheergareeyo hala sheergareeyo xasan waxaan leenahay war caawa iscasil haddaad dalka iyo dadka ka naxayso
oo aad ummadda Soomaaliyeed iyo diinta Islaamka iyo dalka iyo dadka iyo ciidanka aad u naxayso iscasil dhamow Saciid Cabdi waa ku salaamaya sheer garaaya soo qora gacmaha alla idinkama gooyo qoftii aan xasanow iscasil soo qorin caawa ummadda Soomaaliyeed kama mid aha sheer garaaya هلا شهر قريو عبد الله حكيم وك سلامة شهر قريو هذا لو شهر قريو عمر أحمد وك سلامة شهر قريو إن شاء الله أن ميلدر نو غارسيا وحلا هذينا يوسف عثمان وك سلامة ولكن هذه بنكون سلامة سولو هذا ورشهر قريو نبض ينولل دل كان يدد كان وحدا موال وايي عبد الله جبوتي أدبان كو سلامة وهذا عرفق عمر كو صعو كو سيده شهر قرايا ولا شهر قرايا برنامجك شهر قرايا ميل دير غارسيا حسن هلو سو قرو حسنو اسعسي انت غلط او ku dhacay ayaan rabnaa inaan caawo istusno durba isagoon filla Soomaaliya taginba ma badalana dhowrtiisan oga isagoon filla Soomaaliya ba wali lugihiisa saarin oo aan lagu wareejinin oo aan seeftu shalay wareejiyay lagu wareejin ummadii Soomaaliyeed iyo ciidankii qayliyeen qalbi nuuriya waa ku salaamaya ana maxamed cabdulla waa ku salaamaya sheer garaya barnaamijka hala sheer garaya meel dheer la gaarsiiyo xasan ha loo geeyo xasanow iscasil war xasan dhiiqow iscasil naasir nuur waa ku salaamaya shacabka Soomaaliyeed dhagaha u fur Umar Axmed waa ku salaamaya soo dhawaada شهر قرايا وهدي إلياس هذاوي كامل وقت سلامية شهر قرايا برنامج كشهر قرايا أن وحنا كرنا ربعنا الله باش هوية وكذا شيء الشرع لهيد هبلوان من ريحان ما واحد كربتان أو كلياته حس الشيخ محمود وهوية ما كربتان أنت ما كربتان فرحان فارح ديري وقت سلامية حسن طلع وقت سلامية شهر قرايا برنامج كان ميلدر غارسيا ورمجرته المحتى قالب وك سلاميه ساجي تحاج وك سلاميه فيصل ترولا يحيى فولي ادبك سلاميه شهر قرايا فاطمه احمد وك سلاميه شهر قرايا انت غوني وسلامي انت انا غوني وسلامين با دمان شعب وينها Soomaaliyeed waxaan idin leeyahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh soo dhawaada barnaamijka shahar qaraaya meel dheer gaarsiya insha Allah waxaad soo qortaan حسنو اسعسل soo qora dadka isoo wacaya intaan ka dhameynayo khudbada ii kaadiya wax yar ii kaadiya xasan waxaan ku haystaa dambi tirada ka batay durba tiradu ka batay already wuxuu hoos galay safiirkii imaaraadka meelaha u joogay ayga ahay ee isaga meesha ku sugayay عدين بان كهيا أنا ما دهين سلسلة صور عدين كلام كهيا أو قاد كينيا أي لسه سرايد أو للرفاع سرايد حتى وحي سجويدي أنتوا حفيزك كترو وكفريستو كينيا وسجويد الله جاتها يسي محي أهيد الله دباتها يسي محي أهيد الله الرفاض ومدحوينه محمد عبد الله فرماجة كينيا كهيي محوها الله محو دولك دغتو laga kaashay الله دولku dhigtay isagoo dhulka wallahi oo billahi oo tallaahi caawa waxaan qiraya madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo Soomaaliye way rigriyeed gareyn doontaa war nimanka kaadida ku dhaganayd kaadida waaba dhiman remember nafta ka bixi rabtay ilaahay baan ku dhaartay Kenya waa laga qaxi lahaa gaaja looga qaxi lahaa سواحل قحيا الأركلا هدي وسي جوجي لها only 1 month هدو مدحوين محمد عبد الله فرماجو سي جوجي لها كينيا وحال الأركلا دادك قاد كميروغا people oo gaajo u dhimanaya nafta ka wada baxayso ayaa la arkaa taasde maxaa cadeyn kaaga madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo xafiiska wali kuma wareejinin ma dhihin waa kana kursigii ku fariiso ma dhihin Kenya qaadkii bay saa u soo rartay meel walbu ka degay oo daar rogan bay noqotay
والله وضع صعطان بالمرانة يا وانا وذو أكتين إلى أمضي الصوماليات قاتكي كسوف كذي أي كقيل ليان والدروغ dalka daroogada inta la eg laga cilinay ee reer nabad iyo nolol iyo shacabka Soomaaliyeed ay ka cilinayeen iyo Kenyadii ay dhabarka kaga fadhiisteen oo ay madaxa kaga taagnaayeen xasanow durba waad aragtaa xasanow waad aragtaa durba aniga markaan idin bixinayay xisbiga markaan xisbigii la magaciina bixinayay ee aan idin lahaa naar taasi waa taas ciidankii qaranka Soomaaliyeed magaalada Balcad al-shabaab ku hor fadhiyay 8 kilomitir oo la rabay bal in la sii ruqaamiyo ciidankii waa soo tagay maxay u soo tageen de Xasan waa kii shalay ku yiri $100 ninkan qaadayn guriga habartiis ha aado ma kii dhufeysida ugu sii jiraaray sii sugan intuu filada ka tago ma sugayaan waa halkan wuxuu iila sawiran yahay oo uu durba hoosta ka galay kii imaaraadka ee uu eyga u ahaa waraa Soomaaliya waxay u tiri doofaar webi galiye iyo bad galiye iyo xaj tagiye wallahi ma daahiro xasanow hana lugeynin daahiri meyside waxaad dagaal u soo qaaday oo aad mooriyaan magaalada Muqdisho ugu soo xareysay oo aad ummadda Soomaaliyeed u halakeynaysay waxaadna lahayd dalka iyo dadka ayaan waxaan ka badbaadinayaa dictator la yiraahdo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo weligii ilaahay ummadda Soomaaliyeed u soo diray mahdigii ilaahay ummadda Soomaaliyeed u soo diray ayaad waxaad kula colowday inuu dalka iyo dadka imaaraadka iyo Kenyada hadda ku soo fakatay oo ka celiyo oo aad noo sheegtay dalku dhibaato ku yahay doorasho mar raba inuu qabto in la isdoorto mar rabo بخدي أدود يكري تلسنمدي أد كشيء مدحوين محمد عبد الله فرماجو عذيقو هذا كريجي تليها النقانين كدك إسعسل في اللذا أدون جلين نيو إسعسل أنا قوي قتلو نيك أتشري وحقبت كيس كبر سريسود كرع سنيسي ما أنت دتكي إسقى كوكر عسنا ومدي Soomaaliyeed ciidankii cid walba oo isaga ku qanacsanay waa ka hor yimaadeen adoon filada taginba wali filada ma baad taginba dictatorka shalay Muqdisho ku soo weeraraysan lahayd filadan ugu booda thum wallahi waa booda al haydeen hadda adigu dictator ha noqonina kadib war hawiya aqli leh oo wax gartaa ma jira qof ma jira hal qof ما إذا كتير ورصابح واد أركتان وح صعدة وح كو نيجو ضدنا يا نوايدك بيش هويا الله وح إسلام من نيجوتيران وح عقل لما نيجوتيران حسن كي أي نشلي تاجرني أو أي ندبي يا عيني أو أي نموريان تمجالات أو صحريني يرجع إسجن لمتكها ما أنت واتاس ومدي Soomaaliyeed دي أرياء طلع ربطة إلا المقدشة ما لا فكرت أنا هدا كوش يجا والله وبالله وتالله إن هذا المقدشة بلعت إلى هذا كتير صوتها بلعت عاو الشباب هاي سترى Soomaali ذا كلنا إسكبت ده يا أطلع ربطة في الصوماليين نحكي ما كربطة أسكوس أصور ربطة أسا جبر كوجي مرة أسا هور كويات كوجي مرة أسا إمارات كوجي سود جربا مكو أروسي الربان أرجو ياوي ورما لجو أروسي الربا في هذا ما لجو أروسي الربا حصلوا وح كلام هارندي قاب كلام كورة هالو قرن مايو سكلا وحكوم فانسية قرن مايو لجهات حرانة ساعة إنها لو هذا شيء ده أذكر ربطان مشرتو إلهي بان كل دارتي ويل وابتيس أنا ضدك كوغل لي كوغل لو كمربو هلا قصب عيو هلا قصب ورمج عبل كبد العاو قصب عيو قول وبحي
qasbaayaha loo bixiyo xasan dhiiqadii bal ha laga qafiifiyo oo qasbaayaha loo bixiyo inta u talinayso alla iska rabaa shalay waxaa tiri madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madaxweyne ma aha waa mareexan hadda adiga malyaa tahay ii sheeg adigu hadda iskay barbarka aniga isbarde ummadda Soomaaliyeed oo adigana hal lagu yiraahdo waa wacaysle dee ummadda joogta Soomaaliya inteeda kale intay istaagaan waxay ku dhaheen oo ay caawa ku leeyihiin wacaysla tahay adna qasabku muxuu yahay dimuqraadiyad baan rabaa waxaan rabaa doorasho qof xor iyo xalaal isla ogolaan rabaa isla ogol Soomaaliya oo dhan ba hadda ku diiday Soomaaliya oo dhan ba hadda ku diiday ciidanka ku diiday hooyada ku diiday aabaha ku diiday gabarta ku diiday wiilka ku diiday cunuga mulqaha ku diiday qofku ogol male saan yarahay ma dadkan ku qasbaa ma dadkan adiga ku qasbaa ma dadkan ku xukunna oo ku soo jiidna ilaan ummadii kuma ogole aniga leewaay ana hadda ku sheega hadaa arko macnaha waxa noo dhaxaysa inaan iska fogeeyo Soomaa xasana ummadda Soomaaliyeed xasana u tahay way iska ka fogeynayaan kuma rabaan dalkan iyo dadkan hadaa u naxayso dalkan iyo dalkan hadaa u naxayso niyo isxasin waa iga talo war wixii shalay qaylaayay ee garawa ka qaylaayay ee hargeysa ka qaylaayay ee kismaayo ka qaylinay ee muqdisho ka dhax qaylinay ee hotel taxiima ka dhax cabaadayo xasan waxa hadda u sheegtaan ummaddu kuma rabto ku dhaha oo bal u sheega war bal ka dhaadhacsiiya ninkii isagoon filada teginba baa wax walba isku dhex yaacay ciidankii isku dhex yaacay sharafta lahaa ee kala taagnaa ee kala joogay ayaa isku dhex yaacay Kenya xargaha soo goosatay iyo qaadkeedii iyo daroogadeedii imaaraadkii la fadhiyaa oo la shiraa aniga beenka ma sheegay barnaamijka sheergareeya meel dheer gaarsiiya shacabka Soomaaliyeed idin ma arko wiilashii Soomaaliyeed iyo gabdhihii Soomaaliyeed aawen kaca sheergareeya barnaamijka mise taleefankana waa kala jabshaacawa waxaan idin kala soo hadlay baan waaye xasanow iscasil runta ku sheega adiga kii kalena aawe allaha cadaabe isagoo imaaraadka la fadhiya aawe itusa ii soo qabta indhaha ii saara aawe waxa ka raadina waa wada ogtiin inuu la samiran yahay imaaraadka wada ogtiin inuu ka cid walba isku sawirtay qof walba Soomaaliya way ogtahay aawe Facebook aan laga weyn karin laga ma waayi karaba waa in la barnaamijka sheergare iscasil xasanow iscasil soo qora inta ku qanacsan inuu xasan sheekh maxamuud iscasilo oo isaga iyo asxaabtiisuba ay iscasilaan gudoomiyaha baarlamaanka sidoo kale qalbi madoobe iscasil halla iscasilo hadaa dalka iyo dadka u naxaysan iscasila xafiiska ma teginba xafiiskii ummadda Soomaaliyeed loogu talinay maba teginba madaxweynihiiba guriga kama soo bixinba ciidankii qaranka Soomaaliyeed wuu diiday xasanow abtiyow iscasil aniga waxaan ku leeyahay iscasil xukunka kadeg xukunka aqliga hawiya ayaan ku tusayaa maxaa qof iyaga kamid ah gacanta ugu qabto ummadda Soomaaliyeed la halakeeyo oo la dhibaateeyo waa kuwaas waa u jeedaan fiiriya waa u jeedaan inaan ummaddu rabin waa u jeedaan waa u imaanaya sayidii ma aragtaan nin kale oo reer kale ah kuma jiro halkaas eelayga ku dhex jira oo Ilaahay iimaanka ka qaaday oo Ilaahay rubada gooyay oo Ilaahay ummadda Soomaaliyeed ku soo taagay oo ka dhadhama bartay
ayaa wuxuu la joogaa xayntii hawiye ee tuugta ahayd caawa filla soomaaliya dhex fadhiyaan yay ku sugayaan Uhuru Kenyatta yay ku sugayaan imaaraad xariimka imaaraadka iyo Kenyatta waxay rabeen waa hayaane filladii iyagoon tegin Soomaalidii iyo ciidankii dhaqaaqay oo qof waliba yiri xasan dooni mayno xasanow qasab maaha lagu dooni maayo qofki kuma rabto qasbaaya jacayl ma loo quuri karaa qasbaaya tahay wadna qasbaysaa qasabna lagaa yeeli ma farmaajo shalay ka diidood ku eedeynaysa waana qasbaa adiga qasbi kartaa marka adiga yaa qasbi kartaa farmaajo shalay xaa kula dagaalaysay waana qasbooya laba sano rabaa inuu ku darsado oo qasaba war adiga adoon filladii gaarin lagu dhahoyaa hana qasbin hana xoogin hana waalin naga dhammow barnaamijka sheer gareeya meel dheer gaarsiiya shacabka Soomaaliyeed waxa aanu ka hadlayno waa run xaqiiqadan ka hadlayna runtan ka hadlayna yaa moog maanta dalka Soomaaliya qof madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ka rabta inaysan jirin yaa moog war yaa moog cid rabta ma jirta hadday jirto qof rabta Xasan Sheekh Maxamuud hadda ha soo qorto aniga raba ha tiraado 10 ha gaaraan 10 ha gaaraan xasan yaa raba haddaadan xasan rabin iscasil soo qor haddaan rabtana waan rabaa soo qor rubaddu ha ku qooday sheer gareeya barnaamijka aad u sheer gareeya meel dheer gaarsiiya xaqana ka hadla kuna dhinta xaqa ku dhinta xasan cid rabta male assalaamu calaykum عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كسر لو تيفيك حسبك قبيلة ديد ما ماذا حسبك قبيلة ديد يا أمة الصوماليات ما ماذا ده ما مسحنوني كسر لو فكر كاجا كدي مبب عاوة وحماشة كسر سوقرة حسن لو إسعسل سوقرة إذيك ماشي عن ضاد أذك بكدي عرفت عاوة كسر horta waa idin salaamaya horta salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh ummadda sharafta iyo karaamada leh muxaafid iyo kuwaan muxaafidka ahaynba waa dad Soomaaliyeed laakiin waxa fiican dadka Soomaaliyeed waa idin salaamo walaalayaal inaan isku meel wax wadano sababta wadankan wada leenahay diinta inaga dhaxaysa dhaqanka inaga dhaxeeya dhalashada inaga dhaxaysa horta Xasan iyo Farmaajo hadda ma joogtay qarannimadii Soomaaliya ay taaganta صح وأنا رأيي صح qarannimadii Soomaaliya madaxweynihii ruuxi Ilaahay noo hogaaminayay oo bohoshi shalay aan ku jirnay naga soo saaray Ilaahay baa naga soo saaray ku qalalaha oo maanta aynawan ciidan lahayn ciidan noo sameeyay oo ciidanka markuu yimid aan la aqoon meel alla meeshay xire ku leeyihiin waxay ahaayeen amnoon bay ahaayeen dadka mushaarka qaata la bixina lama aqoon waa mucjisada ugu weyn bay ahayd ma garata waxa weeye marka adeerkay Xasan Sheekh maalinku haystay waxaan maqli jiray ciidamadii imaaraadka iyo ciidamadii ummadda Soomaaliyeed ba waxay isku haysteen iska lambar 4 adduunka xagee lagu arkay horta wadan hoos degan ama dhex degan imaaraad halkaas aan ku ogeyn iyo Middle East waxaad arkaysaa halkeeray isku qabsadeen oo birta dheer bay isku hortaagan yihiin ciidamada imaaraadka ku mucjiso horta dadka waxa soo maray baana qaracanka ah alxamdulillah maanta ciidankeena waa la dhisa sharaf iyo karaama loo dhisa waa libaxyadii Afrika wiilal yar oo odayaashii gaboobay aan ahayn oo qabyaalada dadka ku baabiyay 91 isku kaaya gadeen gees ka maray iyo wiilashii curdanka dagaalku markuu dhacay dhashay iyo ciidan ka dhiga oo wadanka adinka leh sharaftana adinka leh qiyamkana adinka leh dhanka doontaan u dhigan laakiin ciidiina iyo qiyamkiina iyo diintiina difaacda wiilashii gacanta ay ku dhigeen war ma lay maqlaaya aad u weyn adigoo soo koobaya ku socod dadkuna waa badan yihiin caawa waxaan rabnaa in la soo qoro xasan hays casilo soo qoro idinku intay dooduhu socdaan qofkii raba in la soo qabtana waa la soo qabanayaa oo fikirkiisa ka dhiibanaya insha Allah taala idaacaddan waxay u furan tahay ummadda Soomaaliyeed inay fikirkooda ku dhiibtaan ku soco maam صح
maama waxaan idin leeyahay marka horta wiilashii waa kuwa ilaa xuduud fadhiya mid nin maamul goboleed ah hor taagan raas casayr iyo raas kaboorina waa joogin raas kaboori waa joogan raas casayr iyo inta ka sokaysana nin maamul xaafadeed ah hor taagan madaxweynahana waxaan aaminsanahay maxamed cabdullaahi farmaajo xafidullah haddii 5 sano loo dayn lahaa oo aan lugaha lahayn oo farmaajo waa mareexaan iyo fillada ka soo baxaan la dhihinahay maanta Mareykan baa la tartamay lahayn haddaan Soomaali nahay been ma sheegayo beeraha iyaga bixi lahaa wadanka loo soo aado dalxiiskaana noqon lahay ma dhicin madaxweynayaashii soo maray baa tuma la wallahi iyo tol beelay iyo reebelay adduunku qaribay madaxweynihii shalalna lahaa farmaajo waa mareexaan annagoo Soomaali oo farmaajana madaxweyne noo yahay xasan sheekh iyo farmaajana aan kala jeclayn laakiin ayagu iskaayay kala jeclaysiiyay waxa la ilmahaaga ma kala jeclay iyaga iska kala jeclaysiiya iyo xasan sheekh ayaa maanta nala soo halfariistay farxaan oo soo bax qarool oo soo bax nima maanta ka baxay marka dhiiqadaada ogeyd buu dhex fariisiyay maanta xildhibaanadii ugu shubay ninka noocaas oo maskaxdiisu noocaas tahay markuu xukunka haystayna la laxabta dheer bay imaaraad ciidamadoodii ciidamadii Soomaalida isku haysta la maraafar bay isku hortaagan yihiin qofka Soomaaliga aan istoom 7 cunug iyo hooyadood gaarigu dul mari jiray tiknikada maanta nolosha aan hayno oo nin aan istooma uusan jidka mari karin en wiil Soomaaliyeed oo saabeerku u xoodan yahay u dhex taagan yahay meel walba in maanta xasan sheekh baarlamaankii beenta lagu keeno tuugada ah annaga ay maanta xasan sheekh noo keenaan way dhacda ilaahayna wuxuu ku tijaabinayaa innaga damiir xumadeena aynaga caloosheenna xun qabiilka qashinka waxa aan la wareegayno waayo xasan sheekhaas nin baa wuxuu rabaa dadka sanka inuu kaga tolo oo dhaho en hadda mid baa wuxuu lahaa en hebel xasan waa abgaalo waa waxma waa wacaysi waxa aqligaas iyo fikradaas leh ayuu rabaa adeerkay madaxtooyada inuu geeyo xasan sheekh marka waxaan leeyahay intaas arar bay iga ahay shala markuu madaxweynaha ahaa mahad salaad oo aan magaciisa qori karin oo xijaabyada islaamuhu qaataan fooshitaarinta ka soo kilkilaha ka dhididaya ayuu madaxtooyada u dhiibay en Cabdikariin Xuseen Guuleed buu arrimaha gudaha u dhiibay oo ka soo cararay galmudug markii la keenana ka cararay oo wax alla wuxuu yahay aanan garanayn haddana reexamar naagtiisa uga qaaday kuraasti 5 tahay oo reexamar lisiya naagtiisa u boobay adeerka waxaan leeyahay xasan sheekh hadda waa ku fadhiya horta hadduu raba mahad salaad iyo Abdiraxmaan Cabdishakuur taal weyne inuu keeno iyo 30 milyan haysto lacagtii iyo caari boorihi caruurta abaaraysan loogu talagalay hoteelada ka dhistay annagu horta xasan dhiiqo hadda aan leenahay out baan leenahay madaxtooyada ma fahanti adeerkay hadduu xasan sheekh ee labada eber ka dhigahayo maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu noogu soo noqon doonaa insha Allah qof iyo cod banaankeena u taala adeerkay xasan sheekh mooriyaantu shalay isku wareejiyay maxamed cabdullaahi farmaajo qof mareexaan madaxtooyada kala shaqeeyo xogayntiisa ma aha oo la taliyihiisa ma aha oo ka taleefanka ka jawaaba ma aha oo ka cuntada dadka siiya ma aha oo ka kuuga ma aha oo ka waardiyaha ma aha nasabnimo iyo laandheernimo taasaa la dhahaa qabiil halkaas uu iska dhigay mareexaan inuu nacamti faraha la galo oo madaxtooyadii ka dhigo muugtahay habar gurigeed lama rabo waa ku sharfan yahay waana ku raacsanahay waliba anoo ka soo jeeda reerku ka dhashay fahmaysaa hal qof oo mareexaan inuu gurigiisa keenin abaal iyo nus baan ugu haynaa sharaftii karaamaduna halkaas ku jirtaa maxamed siyaadna sidaas oo kale u ahaa adeerkay xasan sheekh waxarna arrintaan wax ka barto inuusan mooryaan isku wareejin inuusan mooryaan feeriyaacaysa iyo mid raba guryaha inaan la bilqaysan dhulkii dawladda inaan la bilqaysan madaxtooyada mooryaan inuu ka ilaaliyo la taliyayaal wanaagsan oo maxamed cabdullaahi farmaajo ka mid yahay uu samaystaa rabnaa dadka wax u ah wadanka iyo dadka damiir kale xasan sheekh inuu ka dhigto muxuu ahaa la taliyayaal mooryaantii la soo nacay banaanka ka maro fiiri ama saxnuuniyay maanta halkaa ma joogto yes ma joogto way ka soo tagtay markuu tasalaha wixii hore waan qaldanaaya haddaan imiya hallay toosiyo intuu dhihi lahaa imaaraadkii oo hoosta ka galay kenyana qaadkii soo daldashay iyadoo baahan ayay waddanka ku soo furtay tala wuu dhaafay xasan tala waa dhaafay xasan waa ahaaday filada caawa waxa ku sugan
wixii ka dhex qaylinayay hotel jaxiimo oo dhan baa ku dhex sugan nin waliba dantiisa ka dhex rabaa dalkii iyo dadkiiba waxba looma ogaba lamaba ogaba meel uu maraayaba iyo meelay xaaladi marayso lama oga ciidankii waa soo dhaqaaqay dhufaysyada waa ka soo baxeen xasan caawa ummadda Soomaaliyeed waxay uga baahan tahay in uu badbaadiyo shacabka Soomaaliyeed dalka iyo dadka uu shalay lahaa waa badbaadaa ee uu mooriyaanta ku soo daldalayo magaalada Muqdisho geela ku qalqalay hadda isagaa la rabaa in uu dalka iyo dadka inta badbaadiyo oo yiraahdo ani iga raalli ahaada Soomaaliyeysaan ma in codtihiin iga raalli ahaada iscasilo oo dalka iyo dadka badbaadiyo xasana laga rabaa caawa laga rabaa horta dadkaan uga baxay arrinta kama warqabin qaadka waxaan u qabaa dacaayad inay tahay qaadkii Kenya 12 madfac markay ruday annaga Soomaaliya hadaan ay xasan shaqbaana farxin doorashadiisii qof walba hadda magaalada anigu aan joogo gabar baa ku dhimatay say u fiirsanaysay xasan shaqo markii la yiri ilaahay baan ku dhaartay shal Allah xabaal kawbay ilaahay adduunka bay iga qaaday koomayna ka shoona ku dhimatay Yurubna 3 qof baa ku dhimatay 2 dumar iyo nin waxaan leeyahay marka dad baa yaala isbitaalada ilaahay beenu sheegi ma ayada qofka ku soo wuxuu ku leeyahay hadda isbitaal ka soo baxay waxaan rabaa marka dadkan ma uga baxaya xasan sheekh wax u yaala ma leh hadda intuu sheegayaan anu waxaan arkayaa hebel madoobe oo shahaado la siiyay imaaraadkii siiyay baa idaacadaha ku arka oo la yiri sidaad u burburisay wadanka oo farmaajo u tuurtay oo ciidankii Soomaaliya aad u kala tuurtay oo takadii xasan sheekh iibsaday in Cabdirashiid Cali Sharmaake berbere iyo boosaaso aan sida yadi u haysanayno horta shahaada la siiyay inuu ruufiyaan yahay cadaynaysa ninka la yiraahdo Axmed Madoobe wuxuu kula shiray ninka la yiraahdo safiirkii Kenya shala wuxuu kula shiray magaalada Muqdisho xagee lagu arkay nin gudoomiye oo waliba jaatuus ah oo Kenya shala keensatay magaalada Kismaayo iyo Jubbaland oo maanta Muqdisho dhexdeeda kula shiraya reerku jaatuuska u ahaa iyo dawladdu jaatuuska u ahaa xasan sheekh marka waxaan leenahay hadalka waa soo duuduubaya adeerkay waxa la yiri ninka wadaadka waxa la yaftadiisa in la arkaa xugmanada meesha salaado kama dhicin haday saad xaaladu tahay adeerkay nin islaam ah haduu yahay lacagti deyntayd baa laga cafiyayaa bangiga waxaan maqlay inuu yiri anagu ninkan lama shaqaynayno waa most corrupted person in the world balir ninkaas marka INFT banaanka ka marta qof la shaqayn karaana ma jiro ninka laba maada haduusan yeelay ciidanka Soomaaliyeed iyo taliyayaasha haysta faraha inuu ka qaado oo sida ciidanku yahay almeena sanadka ugu horeeyo wax kala baranayo ciidanku sidiisa inuu wadanka gacanta ugu hayo bangiga inuu san taaban rag haya because ayna naftu waxay leedahay excess bay leedahay ay ku fiirsato waxa soo galaya cashuur mushaaraadka baxaya taas bay wax deynta looga cafiya adeerkay waxaan ku codsanay in islaam haduu yahay Soomaaliya burbur kale uma baahna inuu farmaajiyo hadda dhaasiyahay xilka asaguna oday Soomaaliyeed noqdo qof iyo codna loo dareero warcid kale u dhiib xasanow iscasil farmaajo xabad ha u dhiibin xasanow iscasil iska casil sababtoo ah kuwii qaaqlayaasha ah ee isaga ka hoos qaylinayay ee yuhuudda ah ee geela xamal ku qalqalay ee mid 15 cod hela iyo mid 5 cod hela iyo mid 2 cod hela iyo mid iskaba qada gaajadii bay caawa filla Soomaaliya kula yaaceen waxa loo tashanayana waa inta farmaajo bangiga dhigay waxa la sheegayay 600 oo milyan oo dollar inay bangiga ku jirto marka lagu daro 9.6 milyan oo ay imaaraadku iska leeyihiin waa 609 milyan oo dollar ayaa ku jirta bangiga Soomaaliya caawa ku jirta waxa loo bahoobay ee loo shirkoobay filla Soomaaliya caawa loo fadhiyana waa sidii loo baxsan lahaa lacagta loo qaadan lahaa Kenya shaqadeedii already way qabsatay iyadoo baahan oo dagaag ah ayay dalka iyo dadka Soomaaliyeed ku soo carartay ku soo yaacday markaasay wax allaaliye wixii qaadaha ku soo fasaxday askartii waa kala tagtay askari qura ma taagna marka xasan ha iscasilo haduu dadka u naxaayo oo uu dalka u naxaayo oo uu rabo inuu madaxweyne u noqdo xasanow hadaad iscasisho aad dalkan madaxweyne u tahay hadaad kursiga ku fariisato madaxweyne uma tihide nin wacayslaa haatee ogow
aniga xawarka ma qabsho ina adeero waxaan ku leeyahay ninka haystay hawada oo civil aviation ka haystay oo diyaaradaha iyo hawada Soomaaliya ka wasiirka iyo ka hooseeya yaa diyaaradaha fasaxay hal diyaarada ma imaan karto oo go ahead la siin ma badhacday adduunka caalamku nooca ma shaqeeyo diyaaradaha waxa fasaxay Xasan Sheekhna ma amri karo waayo kursiga wali lama wareegin xaflad baa la dhigayaa wixii wadanka lagu wareejin lahaa baa lagu wareejinayaa farmaajana markaas boorsadiisa ka qaadanaya yaa amray diyaaradahan yaa soo galiya wadanka xagee ka yimaadeen anigu waxaan oran lahaa waxay ku yimaadeen hadda ku sheega waxay ku yimaadeen aan ku sheega dalka madaxweynaha waa loo dhaarshay na Kenyaati oo ka dhaxadlaysay meeshii madaxweynaha lagu dooranayay ka dhaxadlaysay ayaa waxay tiri farmaajo is gone for really for sure is gone ma fahant daqiiqadaas Kenya baraha bulshada iyo meel walba waxay soo dhigtay qaadka iyo lambarada lagala xiriiri karo waan daawanayna isla subaxdii dambe shaqada qaadka la galay oo beerihi baa lagu yaacay maantana qaadkii ugu badnaa baa Soomaaliya ka soo degay gaalkacyu ka degay garaw ka degay meel walba ka degay qaadku saas u socdaa nin baan hadda soo qabanaya wiil hadda jooga meesha la yiraahdo wiil jooga meesha la yiraahdo ii sheeg meesha la yiraahdo ii sheeg gedo ayaan soo qabanaya wiilkaas si fiican idinku fasiraya waxa socda laakiin dadka Soomaaliyeed Xasan Sheekh wali kursi kuma fariisane dadka Soomaaliyeed muusan difaacan karin wadankooda waddanka Puntland haday mudaharaad fiiri ninkii laga cabsaayay ma dagaalano ninkii laga cabsaayay hadooba Xasan gacantiisa kor u qaaday oo uu yiri waa isku dhamaatay kulada aaday wax walba firiye noqdeen Kenya firi noqotay Imaaraad baa firi noqday Cabdiraxmaan Cabdishakuur baa firi noqday tuugo dhan baa firi noqday cid walba oo dalkan iyo dadkan inay boobta rabtay baa firi noqotay wadanku saasu isku dhaxyaacay Xasan isagoo wali kursiga tagin ha is casilo hadoo dalka iyo dadka u naxayo war soo qara Xasan aawe maxaad joojisay Xasan Sheekh Maxamuud hal tusiyo inuu is casilo ha is tuso adduunka kama dhicin madaxweyne xil ka daga oo dad u dhintaan iyadoon xabad dilin iyadoon gaajo dilin iyadoon dharig dilin iyadoon roob dilin iyadoon cudur dilin dad u dhintay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo dartiis markii laga guuleystay waa aragnay ariyaa ninkaas loo dhimaa oo jecel yahay ninkaas soo dah صح ciidamadan Mareykanka markuu shalamay daraad la shiray Xasan Sheekh safiirki Mareykanka wuxuu ku dhawaaqay ciidamo inuu keenayo annaguna admis baan joogno wadanka yaga ka baxaysa deyntii inay naga dhamaanayso bisha March oo soo socota sanadka dambe after 1 year ay naga dhamaanayso adigu 12 bilood mise 12 adigu 10 bilood bay naga xigtay hadda waxaan u maleeyaa 12 bilood bay naga adigu 10 bilood bay naga xigtay inay noqonayso 10 months ka bacdi wadankeenu free lacagti ka noqonayo albaabadiisa noogu balaqnaa iyo jannadiina naacawdiisa noogu soo socotay kullu waa xirban maanta wadam ilbaabada jannada ilaahay ka xiray war ilbaabka jannada Allah ka xirto inta janna ilaahay leeyahay kuwa adduunka iyo kuwa aakhirada marka la isku daro Xasan Sheekhow ilaahay albaabada ka xirtay oo ciriiri adduunyada ha ku dilay iscasi waris asil ku soco adeero dacro ma waan dadka Soomaaliyeed kici kara Xasan annaga nama laha farmaajana nama laha diiriyana nama laha faaraxna lama laha ma waan gobol kasta ka kici kara mid labaad reer Muqdisho waa dardaaranka caawa ugu dambeeya oo reer Muqdisho la hadlayo reer Muqdisho qabiil xagga iska dhiga Xasan wuxuu yahay shari khayr waa soo martay adinkoo dariiqada leedinku dilo madaxtooyada qofkii loo daleeyana dhexdeeda lagu dilo ma fahantay afar shan jeer baa waxaan xasuustaa madaxtooyada oo nin Xasan Sheekh adeerkiis uu maadin ka yahay wiil uu ninkaas u dhalayna taleefanada iyo xargaha taleefanada uu xiro oo wiilkaas al-shabaab oo dhan xukumay halka ka soo gala dam oo maxaa dhacay odag iyo wiilkiis dhalay weeye mucjisadaasna waa soo joogno madaxtooyada ka dhaca Cabdikariin Xuseen Guuleed oo yiri anigu waxba ma qaban karo dadka ololahayna ma badbaadin karo oo ka carray arrimihii gudana waa taagnay ilmaadee rayaalo reer Muqdisho wuxuu yiri waxarii qulxi waa ka ilbixin mooysan qulxi ka ilbaaxin qarax haduu bilowda ayagu ku socdaa
dawladdu hadday dunta reer muqdisho u hormaraysaa xanuun ayagu u hormarhaya magaaladuna waa magaalada qof walba raba inuu ku dhex dagaalamo waayo Soomaaliya maskaxdeeda iyo aqoonsigeedu iyo kaarkeedu iyo aydigeedu Soomaaliya aydigeedu waa Muqdisho waa magaalo madaxdi haddaysan reer muqdisho kacayn haddaysan mudaharaadeen haddaysan xasan iyo safaaradaha jooga xaalana inta hor dhoobtaan aysan dhahayn nin Soomaaliya nin la shiri karaa ma jiro wadanka iyagu KS ku jira dhibaatana haysata intaan dhibta ka baxayna hal safaarada gurigeeda ka soo bixi karta male waa dhihi kara 100 qof oo isu soo baxday kaliya ku filan gaalada wax ka fulaysan ma laha ilaa baan ku dhaartay konton baa ku filan may soo baxaan maalin walba ma boosaanta u mudaharaadaysa iyo laascaanood iyo suufka iyo doolow iyo balad xaawo waxaas wax dhici kara ma dacaru reer muqdisho laha dadka qabyaaladu dileetay reer muqdisho iyaga u taala ama hadla xasan sheekh maxamuud waxaad ogaataan hadduu filada fariisto Soomaaliya meel xukuma ma leh reer hawiyowna idinkuna xamara joogisiin xamar unukaas kale sax waay unukaas kale xamara joogina meel au taliya ma leh cid oo maamulayo America iyo Yurub iyo Aasiya Afrika iyo Soomaaliya Soomaalidii ku noolayd qof walba waa dhintay xasan hadduu kursiga ku fariistay dada u dhintay mana laga ogolaanayo cid oo maamulayo ma jirto xasan xafiiska tan hadii laga dhagayso tan hadii laga baxo oo Soomaaliya ba sii jirto wax Soomaali la dhahaba ay jirto anigu I don't believe it kulli 30 sano dib waa loo laabanaya ilaahay saasiiska baryan gacmaha horsanayna inaan dhibaato la kulmin hadii tan laga baxo unukaale nin dambe madaxweynaha dhagiis ka soo yeeli mayso ama baydhawaa laga dhigaya ama baraa laga dhigaya ama jirib baa laga dhigaya magaalo madaxda haba u fadhinba in xasan dhiiqo kale na soo hor istaago haba u fadhin madaxweynaha Soomaaliyeed in la wasaqeeyo dharkiisa صح bisanaya guriyaha iyagu haysteen bangiga waxa yaala ha gurteen hadhowna meydka inta nuurad lagu shubo difaaca ka dhigteen dagaalka 4 bilood ku hab bilowdo taal weyn haduu bilaabaya anagu waa iska sii diyaar garoonayna hubka iyagana urursanayna ma garata taal weyn markuu soo aadataa isaga celino nabaday khayr baan kaga tag ما شاء الله واكم سلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حسن مشيخ محمود وحلايا هاي اسعسي ورسوقنا بل انت الصومالي عاور ربطة ان اي حسن شيخ محمود وشيكت انو اسعسلو شارس كان قاطع حسن لو اسعسل ده انا وحكا لو ماهيو حسن وحلايا اريا اظن في الليلة تجينا فشلنت ايه اسعسي والله اظن في الليلة تجين laga rabaa inaad iscasisho ha tagin filada ha isku tagin haddaan ku sheega wallahi haddaan ku sheega xasanow filada ka dhamow ha isku tagin ka dhamow filada ha tagin ana waa kula talaa xasan iscasil soo qora inta aniga abtiyaashaya xasan fiifa soo qora inta kale Soomaaliyana ha soo qoraan xasanow iscasil intaasaan ka rabaa حسنو اسعسل ارجع waxaan ku sheegaa runta fiilada adoon tagin ayaa waxa laga السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته meeshaad ka soo hadlaysa iyo magacaaga magacaygu waa Jilaani Nuur Xirsi waxaan ka soo hadlayaa gobolada dhexe ma garatay walaal waan gartay horta hore ilaahay baa talada haya taladuna waa talada teena ma aha waa rabbi ma garat maya su'aal baan rabaa inaan ku weydiiyo gobolada dhexe gaalkacyo waxa la yiri qaad baa ka degay arinta maxaad kala socotaa walaal arintaas waxaan ku xaqiijinayaa 100% haddii aad rabto video call xataa waa ku soo diri karaa bari shala iyo maanta labadaba uu ka degay cadaadu ka degay guruu ka degay laascaanu ka degay gaalkacyo ka degay meel kasta asagii oo admudayso ciir baa la soo daadiyay maxaa intaas waxaaba ka sii daran oo ka garan karnaa miira gobolka miira qadka waad ka aragtay sidii jireertii adoontii ku dabaaldegayso يعني وحابب المدة بيني حرنمه هلين با وضع الصومالي يعني لباتليسة يقاتي تحيرنا وحيب ما دام محمد عبد الله فرمات مدحويني قرن كشعب ملايين وهاي دبالدقي ينقاتينا والله صوف صحي اساسا كو عضيني مقرتي صح
marka taasi waxay muujinaysaa baahida saa'idka ah ee ay qabtay dalka Kenya ama ay la rafaadsanayd qaadkan iyo daroogadan inay Soomaaliya geyso intii madaxweynuhu xilka dalka hayay macnaha waxay kula jirtay cadaab waxaad moodaa in cadaabti afurka laga soo qaaday marka way la soo fakatay Soomaa saas weeye arrimo badan bay leedahay boontiska koobaad oo qaalaha qaadka boontiska labaad waa arrin Soomaaliya ka ficin doonta waa gobolada jubbooyinka horgallada ay haystaan oo ay rabto inay dalkeeda ku darsato waa badda Soomaaliya oo kheyraadku ka buuxo iyo gaaska iyo balogyada caalamka aan ku jirin oo la helay ma garatay صح marka walaala qorshihii koobaad oo ah in haddii maxamed farmaajo laga tuuro meesha inta la isku bahaysto jini iyo samaajaad iyo balaayo iyo qurun iyo camaas lagu kiciyo in qaadka la soo furo waa qorshihii koobaad wuuna hirgalay haddaad xataa doon video callka waa kuu furi karaa waan hayaa qaad aanu maanta soo gashay anu balwada waan rabaa laakiin wadaniyadda ka sii fiican ma garatay wadaniyadda ugu jida si fiican ma garatay waan gartay kaamirada ma noo furi kartaa kaamirada ma noo furi kartaa si ay dadka Soomaaliyeed ugu qancaan in uu qaadkii Kenya magaalada joogto magaceed magaalada joogo waa caabud waa meel u dhow oo tuulo u dhow baan joogaa waxay u dhaxaysaa xiraale iyo caabud waa laakiin waxaan hoos tagnaa magaalada caabud baan hoos tagnaa ma garatay waan gartay ma noo furi kartaa kaamirada adigoo raalli ah oon adigoon wejigaaga xitaa waxba ku qabanaynin qaadka keliya ma noogu qaban kartaa qaadka keliya ma noogu qaban kartaa qaadka inta Kenya laga qaaday caabud waa ka degay ee aad hadda kor fadhido aad lisayso ma la tusi kartaa waan yeelayaa walaala macaan waana danta dalka iyo dadka iyo diinta ku jira daroogada qofka cunaya asagoo cunaya haddana qadiyada kale oo iimaankiisa iyo damiirkiisa hadduu nool yahay wadaniyadda iyo damiirka ku jira ka weyn ma garatay caleen xun oo cunayo ama balwad ay naftiisu baratay ma garatay maasha allah khayr allah ku siiyo qaar baa waa beentaa soo qoraya oo been u maleeyaba oo dad hurdaa jira marka waxaan kaa codsanayaa kaamirada fur nalna ku qabo na tusi qaadka baraatiri noo tusi si toosa noo tirsi qaadka na tusi waa markhaati cad inuu xasan sheekh maxamuud qaadkii ku fasaxay dalka Soomaaliya markii madaxweynaha xilka ku wareejiyay oo uu xilka u dhaartay Kenyana ay qaadkeedii iyo gaajadeedii dalka la soo gashay noo fur kaamirada insha Allah exactly walaale leerka ma furan karaa aduu kaamirada ma furi karaa soo hadda waxa adigi soo galay Soomaa ana ku soo galay furo aniga idaacaddeedu waa ciyaad heer sare ah waxba lama qarinayo soo furo ka jawaab walaala macaane waan furayaa inkastoo maanta baan ciladan ku arkayay kaamiradu si dib ay igu furmaysaa وقعي وكعلن لنا إن شاء الله تعالى كاميرا ذا كعلن لنا إن شاء الله شعب الصومالية جوليستا شركرية هذا الله شركرية صقر حسن وإسعسل حسن إسعسل والله كاميرا ذا ويدي دي ماشي عشان كفرنتو عبد وكاميرا ذا عاد بوجو عدكتهاي صقر إن شاء الله قف والبو صوماليات وحنو كعصرنا إنه صقر حسن وإسعسل والحسن وإسعسل صقر إن شاء الله ما حد عي وكاجو عي بان دعرو ما مغشا وانكم مقلع ولا العلة فرسمو أيا كتشده كاميرا يفرمو ميسو موبيل كنا وموبيل إسك شعيسة نبدأ بدي حوليس رعلان هاي ويفرمو إذا كاميرا لكن حقيقة حال يري سعب اللقمة ذو قرح ضرر شوك تسعب مصاصة وركتا أنت تصاصة ورتا ما يصدر كرتا
yes taas ay fuu haddaan leerka daaranayaa si kuu soo sawirayaa ها إيسو aan ku صور soo wacay ma إيسو صور إيسو در أنا في سنة هذا إيسو صور إيسو در إن شاء الله haye walaal haye أن qof walaalayo qofka raba inuu waco lambarkaygu waa halka ku biin garaysan raayigaaga ka soo dhiibo haddaad Soomaaliya meel kamida joogtana waxaan ka codsanayaa inaad nala wadaagto meelaha uu Soomaaliya maanta qaadku ka soo degay meel kamida haddaad joogto inaad nala wadaagto ayaanu ka codsanaynaa oo aadna soo wacdo oo aad barnaamijka ka soo qayb qaadato si aad dalkaaga iyo dadkaaga wax uga difaacdo xasan sheekh maxamuud is casilna soo qora qaar baa waxay soo qorayaan farmaajo dhan war farmaajo goormo waa ku deeyay farmaajo nabad iyo nolol waa ku deysay waaba hurdaanba wadanka waxaa la wareegay hadda idin sheegay farmaajo ku waalateene wadanka waxaa la wareegay naar iyo naxli qaar baa hurdi ku jiraan war ka toos hurdada xasan iscasil u baahannahay xasanow iscasil u baahannahay insha Allah soo qora xasan ha iscasilo السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كسو دو إذا عدى حسبك قبيلة ديت ما شاء الله ولا شيء ماشي تكسو هذا ليسيه مقعاقة. حل وان دعر وان سلامي وحا مقعاق وفيمي ليسبا لي راوحا كسو هذا دلك هولا. عودك كورمو يرى قادة كرتا وحر. waxaa la yiraahdaa waa may maqlaysaa hadda si fiican ma ku maqlaa ku soco adoo soo koobaya waqtigu waa yar yahay waxa aan leeyahay xasan sheekh waxa weeyaan doofaarku baa la dhima daahiro ummadda ay dabeecadiisii hadduu durdur iyo maxaa la yidhi biyo ku dhaco madda ay dabeecadiisii weeyaan xasan sheekh horta iscasil haddaan idhaa nin iscasilaya maaha laakiin waxaa casili kara maanta oo xasan meesha ka kaxayn kara waa shacabka iyo ciidanka oo isgarabsada ayuunbaa ninkaa meesha ka kaxayn karaya annagu waxaan leenahay shacabow soo baxa sidii suudaan loo xoreeyo u xoreeyo dhulkiina sidii maxaan ku idhaahdaa loo xoreeyo liibiya sidii loo xoreeyey maxay tunisia u soo baxa banaanka soo fadhiista baarlamaanka xataa in la laayo weeyaan baarlamaanka tuugiinta caada qaatayaasha meeshooda ha loogu galo ha la laayo waa inay dadku ay maadaragtay shicibka baawarku waa shicibka weeyaan hadda waxaan maqlayay gabadh maanta soo gashay ina ciidamadii burundeskii iyo ajaanibkii uu isku hareereeyay waayo ciidankii dalka lasoo tababaray ee ciidankii xoogga qaranka ahaa ee isaga ka amar qaadanayay ee dhashiisa ahaa ayuu intuu wuxuu ka doorbiday ajaanib dee ninkaasi waxa uu soo wada wax ku marma aha odaygan guddoomiyaha ee sheekh aadan madoobe la leeyahay odaygaasina waxa weeyaan waxaa la yidhahdaa soomaalida waxay tidhahdaa nirig xaaraane hal xaaraane nirig xalaala ma dhasho odayga awalba waa la ogaa iminkana dhiiqadii wuu sii galay laakiin baarlamaanka iyo xasan sheekh iyo 66 war banaanka u soo baxa shicibow banaanka u soo baxa askartiinina way garab taagan tahay baan leeyahay waana ka baxay walaalkay wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أدي أدبكم سلام يا شعبك الصومالي برنامج كشير قراية ميل دير جارسية إن شاء الله تعالى قادك صوماليا وكسودتي حسن جورجورتي وكفى صحي ومدي صوماليات يدلكي صوماليات ما أنت ما أهينين ومدي صوماليات حق وما لها إن ما أنت قال وكفى صحي ومدي صوماليات ما أنت حق وما لهين إن عيدا كودي إن ما أنت عيدا كودي لك على الدرو وما راهين حق أدبك سلام يا ولد أدبك هاga qaadaya walaalkay soo dhawow meeshaad ka soo hadlaysiyo magacaaga ku soo dhawow idaacadda xisbiga qabyaaladiid waxaan ka soo hadlayaa wadanka Austria qaaradda Yurub ummadda Soomaaliyeed waan salaamayaa ma sha Allah waa ka qaadayna anaguna adigoo soo koobaya fikirkaaga maxaad kaga dhiibanaysaa maxaad dhihi lahayd horta xasan sheekh maxamuud madaxweynaha cusub ee la doortay isla markiiba la cambaareeyay oo ummadda Soomaaliyeed geerida noqotay markay soo la doortay maxaad fariin u diri lahayd horta wala horta cidna ma cambaarayno adiga cambaarayay ma fahamtay صح
فكر كادنا هذه حرب أو تاي لكن ما وحي ومت الصومالية كلها قوام فهمت iska soco ummadda Soomaaliyeed madaxweyne farmaajo markuu xilka ka digay dhimatay ma aniga ila qabin fikirka tag wasaqiyo السلام عليكم ماشي كسو هذا سي مقعاقه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا ماشي كسو وعي سي مقعاقه حكسو عيا كينيا maxaad ka ogtahay xaaladan qaadkan Soomaaliya ay Kenya ku furtay horta waxaan rabaa inaan hadlo oo waqti yar ah isiisid صح horta annaga waxaan haysta qaad iyo Kenya iyo waxa soo dhan way ka badan tahay wadanna baa maqan صح dawlad la'aan waxay tahay adigu waa yartaa u maleynaya waa la soo maray anigu dawladii Maxamed Siyaad Barnaaniga bariday may aaridid laakiin de markaas qof weyn oo majuura maadan ahayn aad weyn weel wax lagu tuman karaa waad yaray صح annaga waa yarayno dadkii ku soo koray waxaan ahayn dawladda صح qaad la keenay iyo diyaarad soo degtay iyo waxaas wax ka weyn baa wadanka ka socda صح wiilashiinaan khayr Allah idin siiyo waa soo halganteen annagoo dhanna quluubteena horta haddii wax walba la bedelo qofka qalbigiisa qofna ma bedeli karo صح haddaad wanaag ii samaysid oo aad i wanaajisid weliga waa ku xasuusnaanaya aad weyn farmaajo intaasoo Soomaali ah waxay u daba socotaa wanaag ay uu isaga ka arkay waa صح Soomaalida waxay ku maamaadaa ayaxtag ee la reeb صح farmaajo wuxuu ahaa macallin loo soo diray Soomaaliya صح Soomaali oo dawladnimo ilowday wuxuu xasuusiyay in dawlad la noqon karo wuxuu xasuusiyay in wax la qabsan karo wuxuu xasuusiyay in wax walba la samaysan karo wuxuu xasuusiyay shay la iska kaxayn karo صح dadkii waxa la baray oo la baray in wax la qabsan karo qofkii maanta u yimaad ani fiir guri baan deganahay guriga wasaq buu ahaan jiray wuu uri jiray isagoo uraa waxaa timid naag nadaafad leh oo nadiif badan gurigii bay dhaqday way nadiifisay way uusiday صح bari markii aaso gabadhii tagto wasaqdi markii la keeno qof walba urkii wuu dareemayaa صح Soomaali wiilka ninka hadda yimid wax alla wuxuu sameynay isha lagu hayaa صح ma ogtahay qaad iyo waxa in lagu mashquul farmaajo macallin homework u diray Xasan صح hadduu tagayna 10 uga tagay صح su'aalu u dhiibay صح Xasan suu uga shaqeeyay su'aalahaas aan sugaynaa صح Soomaalina indhahay kala haysaa صح waagi aroy tag la dhahay meesha lagama joogay waxa waa askariga tag la dhaw sujuuda xabad kaga dhufanaya si lacagteedu dhahaya صح fiiri waxaan qaad iyo waxa inaan ku mashquulnama ninkan homework u dhiibay macnaha Xasan homework shaqo guriga loo diray oo ku maqan yahay Soomaalidu shaqo guri baa loo diray askari mushaar la baray hadduu ka gooyo wuu dilayaa صح shaqaale lacag la baray hadduu ka gooyo wuu dilayaa صح magaalo nadiifiyo hadduu qashin ku dhex daadiyo waa waxa la leeyahay wariyaa qashinka laga go صح marka dadka ordaayo oo hadda u malaynaya sidii hore ma aha صح sheekadu sidii hore ma aha iyo iska tag iyo haddaan mushaar qaadanayn gurigaaga aad iyo waxa waa laga baxay صح dadku indhahay kala qaadeen macallinna loo soo diray buu ahaa ilaahay baa noo keenay ninkii hadda meesha ka tegay laakiin Soomaali wali waa joogtaa dawladeennina waa joogtaa adigoo kale wiil ahaa jooga gabdhaheeni baa jooga shicibkeeni baa jooga indhaha aan kala furno wixii wanaagu Xasan sameeyana waa ku sheegaynaa hadduu xumaan sameeyana hadda waa hadlaynaa ما شاء الله ما شاء الله gabar Soomaaliyeed oo aqoon leh oo caqligeedu uu ka qaybsamo oo aad iyo aad u fikir fiican baa tahay fikirkaasna ummadda Soomaaliyeed oo dhan waa kuugu sabciday waa kuugu sheergareeyeen waa ku leegareeyeen waxay soo qorayaan fikir aad u fiican Xasan Sheekh Maxamuud homework ayaa u yaala ma sha Allah ku soco ha marka walaal in qaada lama sawira waa fiiri waxaan ku iri gabar baa guri wasaqa deganaan jirtay gabar kale oo gaariyada timid gurigii bay nadiifisay way uusisay bari marka hadii
gabadhii tagto haddii gurigiiyo wasaqa loogu yimaado na adaa urka wadataa la leeyahay gurigeenu nadiif weeye صح هذا وين sooma هذا ma garatay صح ninkii gaal ah oo ama Kenya ha ahaado ama mid kale ha ahaado oo wadankeena waxa guduba ku sameynaya askariga muwaadinka oo 4 sano wiilashan askarta ama askar dibadaha laga soo wiilal wax wada bartay akademiga waa صح dad wax wada bartay mutacallimiina waa صح waagi la dhigi jiray ama qaada ama tag ma aha صح ciidankeena wiilal yar yar oo generaalo oo yar yar oo ilma ah noo jooga صح they don't take nonsense صح ku soco fiir wadaaga la baray quruxda la baray dawladnimada la baray wadan jacaylka la baray marka nimanka hadda ordayo way soo lumeen war ma haysaan nimanku iyaga lunsan aad baa kuu salaamaya sharaf iyo karaamad leedahay ilmaha allah ku xafido allah ku barakeeyo adduunka iyo aakhirada allah ku barakeeyo guulayso insha Allah marka hooyooyinka halgama ayaan ku jirnaa waa kaas hana la ogaado insha Allah taala guulayso hooyo guulayso ilmaha allah ku xafido ilmaha allah ku karaameeyo hurdo caafimaad leh insha Allah taala geeri khayr iyo barwaaqo ku rajeynaa assalaamu calaykum السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته meeshaad ka soo hadlaysiya magacaaga waxaad soo wacday TV-ga xisbiga qabyaaladiid walaalle waxa weeyaan xildhibaankayga waa ku taageersanahay marka koowaad codka wax yar kor ma u qaadi kartaa waqtigu waa yar yahay fiidiyoogana waxaan rabnaa in clear loo maqlo codka kor ma u qaadi kartaa codka haa waa u qaadi karaa hadda may maqlaysaa si fiican baa kuu maqlaa ku soco magacayga waa maxamed ma garatay waxaan joogaa magaalada muqdisho barnaamijka mar dhexaan soo gaaray maanta waxaa ka degtay Soomaaliya 4 diyaaradood oo qaadkii Kenya ma garatay 4 diyaaradood oo qaadkii Kenya baa ka degtay waan gartay kaalkacyo labada dhinac oo dhanka Puntland iyo dhanka Galmudug iyo magaalada la yiraahdo Cadaado 4 diyaaradood halkaas ka degan saan warbixinta ku hayno ma garatay waan gartay sax ku soco ilaa Boosaaso Garowe Laascaano goladan dhaxoo dhan ilaa Soomaalida Itoobiya gobolka Wardheer intaaba waa gaaray waa sax ku soco warkaas waa waad maqashaan shacabka Soomaaliyeed nin raga ayaa wadanka laga kaxeeyay oo waxa looga qaaday cadaalad darro markaasaan waxaanu qaadanay akhasunaas ku soco warkaas marka waa war xaqiiqo ah oo la hubo waa maalintii labaad oo ka dago qaadka Kenya Soomaaliya marka waxa weeyaan madaxweynaheennii cusbaa ee la doortay wixii laga filahayay horaantoodii waa la hayaa oo ay hadda waxa weeyaan Kenya ka mid tahay inuu u dabcay safaaradihii farmaajo ku ooday xalane oo uu ka faanayo ayagu ugu tagi jiray madaxtooyada haday waxa weeyaan wax ka maanta hoos ordayo ba sidii ay laf la tuuray halka gal xagga gal imaaraadka u gal Kenyaatiga u gal meel walba isagiiba daadsanba oo ordayba ku soco asagiiba wuxuu ugu tagayaa safaaradahoodii ma garat sax waa nasiib darro weyn ciidamadii Mareykanka oo wadanka ka baxay markay ka baxeen farmaajo waa diiday inay ku soo noqdaan hadaad waxa weeyaan wadanka wax ka qabanaysan ciidamadayada noo quweeyo oo nala garab istaaga waa farmaajo ku yiri sidaas uu ku record gareeyay Xasan Sheekh Maxamuud markii saa loo doortay waa waxa la soo hadlay madaxweynaha Mareykanka ciidamadii farmaajo ka diiday waa soo socdaan marka waxyaalo badan oo asagoo hadda waxa weeyaan xilkii aan la wareegin baajileec badan ka muuqda marka dalkeena Allah inoo badbaadiyo xilka markuu la wareegana dhagaheeni indhaheena wax ku arkaynaa ninkan 4 sano madaxweyne dambana rajo kama rabo qabyadii uu sheegayay buu rabaa 4 sano inuu ka dhamaystirto ma u malaynayo inuu waxa weeyaan meeshii hadda joogtay intuu hore uga sii qaado inuu meel qurux badan gaarsiinayo maanta madaxtooyadii markuu galay wuu yaabay wuxuu u tagay madaxtooyo kale oo caalam ah
وهذا قروح بدن وتو كتجي عن أهين ماشو أفرت عفروت فوقبي آد ماشي وحويان كستومين كي رجبرتو سورنايد والله ما أنت ويا بالي يردت كي للسعودية مركي أي وربحنتا أي صوت ديرين aad buu u yaabo wuu wareeray marka meeshaan ba inay tahay Soomaaliya waa Malaysian waay aad weyn dhiiqal waa loo gashay dhiiqal ku jira filada ana ilaashanayo aniga madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo wariyaasha magaalada muqdisho jooga waxaan ka rabaa wax allaaliya wuxuu madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ku wareejiyo ninkan iimaan kale ee ayaxa waa inaad soo sawirtaan shaqadiina waa shalay waxaan noo sheegayseen xalane inaan wax soo duubno oo doorashada soo duubno aan loo diidaan noo sheegayseen hadda waxaan idinka rabnaa inaad soo duubtaan wax walba oo xasan sheekh maxamuud lagu wareejinayo filada soo duuba bangiga soo duuba isbartiibada soo duuba meel walba soo duubaysaan hadda soo duubi weysaana kulligiin xabada la idinku leenaa xabad wariyaashan beelalayaashan sheega ku soco maya waxaas waxa weeyaan ninkan dukumenti dheer buu diyaarinayaa waxa weeyaan madaxtooyada xataa waxa ku jira libaaxyo aan maanta waxa la tusay 4 libaax oo lagu xanaaneynayay oo asagoo usan meesha uga tagin laakiin dawladdaanu keentay oo ay ku talagashay madaxtooyooyinka caalamka libaaxyo waxyaalaha resultiga oo laga helay ma garad wuu yaabay ma garad laba libaax oo kamid ah South Africa laga qaaday ana hadda ku sheegay labada libaax si qaldan baa xilligii ciidamada South Africa ay joogeen dalka Soomaaliya ayaa dalka Soomaaliya looga qaaday marka dib baa loogu celiyay madaxtooyadii joogan kuwa ana marxaati ka labadaas iyo laba kala weeyaan afar weeyaan si fiican loo xanaaneeyo oo kiiba maalintii waxa la siiyaa 25 kiilo oo hiliba ma garad sax marka wax badan uusan meesha uusan ku ogeyn oo ama dhismayaal ha ahaato ama check-in ha ahaato intaas oo waxa la keenay check-in oo computer oo waxa weeyaan ayagu isku furaya si casri ah isku furaya hadda ninkii maanta wuu yaabay madaxtooye waxa weeyaan heer caalami ah buu yimid marka waqti baan horta siinaynaa haddaanu anagu nahay team nabad iyo nolol waxa weeyaan ku soo boodi mayno asaga ninkan istuqaynaya marka ishaan ka fiirinaynaa saddexda bilood oo horaan anagu qabanaynaa soo wax u maamulo ma garad xalay waxa la sheegayay kooxdiisii feer ordi jirtay cayayaanka ahayd laba nin oo kamid ah inay isku dileen hay'adda nisa ana la dhiibaya gafoorka iska garaacay aado weyn waan ku salaamayaa walaalkay cashir kule inaad iga sii dheeraada ma rabo aad iyo aad baad u mahadsan tahay sharaf iyo karaamo ku noolow ku soo dhawow TV-ga xisbiga qabyaaladiid nala soo socotiid wixii xogo oo aad kala socoto meesha la yiraahdo dalka iyo dadka Soomaaliyeed dalkaaga iyo dadkaaga wax ka difaaca insha Allah dalkan iyo dadkan difaaca u baahan yihiin aad baan ku salaamayaa ku salaamayaa وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لما شعب وينها صوماليات ميل البلديات على ذلك جوكتان وحلبان كشعب الصوماليات حلبان دحر نبض iyo nolol hadaa igu taqaaneen in aan muxaafad xaq jir ah hadda waxaan ahay mucaarad xaq jir ah oo runta sheegay xaqiiqadana ka hadlaya una sheegaya ninka la yiraahdo Xasan Sheekh Maxamuud iyo xisbigiisa naar iyo naxli runta u sheegay lama kaftamayo aniga lama kaftamayo shalay inaad aniga ii sheegto dalka iyo dadka Soomaaliyeed وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحير إيكادي صاحب وحال كان dadka garow jooga andaraab waa ku xiran albaabadu waa ka xiran yihiin qof ma hadli karo ciidamada ku wareegsan ciidamada lagu wareejiyay dabal jadiid iyo doofaar tacabkiisa diyaaradii qaadkuna laascaanadu way ka degeen garow way ka degeen albaab walba way taagan yihiin qaadkii saasaa loo dadkii waliba qaadka waa lagu dhagadeynaya dadkii cuni waayay iyo dadkii qaadan waayay maanta waa lagu dhagadeynaya ma garata waxaan ku weydiinayaa maxaa tiri maxaa garow ka dhacay baa tiri ku soo celi garow dadkeedu waxaan ku dhahan daraab baa ku xiran uga fadli kara ma jiro ma garata sax haddii alla ku samagol yahay diyaaradii qaadku way ka degeen laba ka degay ma garata sax dadkii aad iyo aad bay u naxeen ummadii waa la yaabay saaka Allahu akbartii laba diyaaradood baa ka degay laascarood way ka degtay taleexa way ka degtay
ku sababul yahay dadkii niyadii waa ka dhimatay qaadkii markii la qaadan waayo dadka askar baa loo diro liiqaata qaadka ma garan صح qaadkii laascarood lagu rorna goro waa loo soo raro laascarood wayse soo dhaafisa gabigiisa markii laascarood cidu qaadan wayda goro waa loo soo raray qaadka ma garan صح maalin madow bay noo ahayd ilaa shalay ilaa maanta ma garan واقرت dukaan furan iyo albaab furan oo ma jiro dadkii dhigad baa albaabada lagu furayaa guryihii iyo baqaaradii iyo qasab iyo shan ku furaa la leeyahay dadkii kadeedkaas haysta ma garan وان قرن haddii alla ku sababul yahay meeshii qaadkiina dadkii markay diideen waa lagu dhagaday khasab qaado soo walba qaad maada imi jirin khasab ku qaado واقرت xaaladdu halkaasay maraysaa ilaahay kenyana waa farxasaa halkaasay dabaaldegaysaa kadeedkaasaa ka taagan halkan rag badan oo dhallinyaraha baanu halkan ku joognaa warar dilaac nin walba gidaar buu madaxa ku hayaa ma garan ما شاء الله شعبك الصوماليات نوايد المغلان فرينتينو وي سو غارتي بلايينتا سوماليدانا وي غاري دونتا كولا شاب بدن marka waan idin salaamaya reer galow aad iyo aad baad u mahadsantihiin salaam calaykum عليكم السلام عادي يا ما انا ود صاحب برامج هودا كدالين ان شاء الله waad mahadsantihiin allah idin xafido allah idin karaameeyo dalka iyo dadkana allah inoo barakeeyo assalaamu calaykum عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وانكم السلام حدي ما دعر waan kaa qaaday walaashay waxaad soo wacday TV-ga xisbiga qabyaaladiid runta sheeg hana baqin meeshaad ka soo hadlaysay magacaaga إن جرمل بان شوغا مقعيقنا وحن كوري هودا الله يدهدا وحن كوري هالكان كيرا شيغيا وحن كوري محوها إنان وحن كوري صدح وحن كوري بلودو لسوغو لتجابيو iyo wax kuri noqo murugoona iyo waxaas toon wax bayna taraynin quwadna inaan wax kuri inaan iskaga qaban kareenin caalamna inaan iska qaban karin ilaaha subxaanka saddexda bilood loo qabtay inuu inagu dhaafiyo oo dhalinyaradii habaarkoodii inuu ilaahay aqbalaban ilaahay subxaanahu wa ta'ala sharaf badan u weydiinayo ina dhaafo aakhira iyo meel laga nicib yahay tago آمين 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 إله إن شاء الله ساسان كبريو أون أسود تكني أون أسود عيني إنه إله سبحانه قادر وحن كوري إنا ضافيو صدح ذا بلود إنه جو قارين يعني إله وين كرتشيني يا حتى وحن كوري دول كاني الحراشة بدني الحراشة مالك استو حراشة يا إن نكى ميريها كتير وحن كوري ما يجري صدح بلود وحن كوري يا كور رياضي سوا وحن كوري محوها دمانة يا إنه جو قارين بن ألا وين ويدي ربك الرحمن كا xildhibaanadii saa inoo gartayna inuu kansalka dhiigga alla ku wada ridaan ilaahay u weydiiyo subxaanahu wa tacaala waana ku salaamayaa inaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم سلام meeshaad ka soo hadlaysay magacaaga waxaa soo wacday idaacadda xisbiga qabyaaladiid meeshaad ka soo hadlaysay magacaaga magaalada muqdisho ka soo hadlaya walaal magaalada muqdisho aad ka soo hadlaysaa maxaad kala socotaa qiyaaradahan qaadka iyo dhibaatadan dalka iyo dadka Soomaaliyeed uu geliyay ninka la yiraahdo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo hadda la doortay ciidanka gadooday ee magaalada muqdisho soo galay iyo balcad ka soo dhaqaaqayna maxaad kala socotaa waxaas waxa ka jira mala saaxiib macaan qaad la joojiyo qaad diyaarada ku imaadan ma jiraan qaadkan markastoo imaada oo doomo ku imaada oo kismaayo laga soo dejiyaa ma garad waan gartay mar walbo imaada ilaa dawlad markii qaadka la joojiyo maalintii qaadka la joojiyo maalintii ku xigtay xamar uu ka digay qaadka oo doomo ku imaanaya ma garad iska soo beenaala taadiga beenaala meesha loogama baahna assalaamu calaykum نار يلحد وعليكم السلام ورحمة meeshaad ka soo hadlaysay magacaaga waxaan ka soo hadlayaa xarunta ee caasimadda Puntland garow صح waxaana ka mid ahay team nabad iyo nolol ma garatay waan gartay wiil Soomaaliyeed oo sharaf iyo karaamo leh baa tahay maxaad kala socotaa qaadkan la leeyahay Kenya dalka ku soo daldashay oo uu macnaha markii Xasan Sheekh Maxamuud la doortay qaadka ku soo furmay dalka Soomaaliya maxaad shacabkiiga horeeyay baa fikirka la qabta garow qaadku waa yimi galkacyo waa ka degay ilaa Soomaaliland buu dhaafay qaadka miiroogu ma garatay waan gartay
taana waa wuxuu durba xasan qaladkii ugu horeeyay uu ku dhacay wixii uu farmaajo inaga xidhay in markiiba laynoo bilaabay ma garatay waa waxqabadkiisii koowaad ku soco waxqabadkiisii koowaad qaladkii koowaad uu galo wuxuu noqday inuu qaadkii dhowrka sano ah ee dalkan wuxuu u geystay la og yahay iyo dowladdaasi waxay ka lahayd in markiiba uu furo ma garatay صح معناها باهي jirtay oo dhibaato jirtay oo digsi dhabarka ka saarnaa dhagax ka saarnaa oo daboolnayd oo xasan lala sugaayay ayay Kenya aragtay cidba fasax kama qaadana waa la soo yaacday wax kaleba uma ololeeyeen wixii u horeeyay ay u socotay durba way heshay isla maalinkii ay doorashadu soo bilaabatay la doortayba way heshay صح marka durba khaladkii koowaad waa ku dhacay laakiin waxaan qabaa fikirka waxa la qabaa dadka kale in waqti dheeraad ah la siiyo khaladkiisu wuu badanayaa cid kastuu khalad ku sameynayona way iska qabanaysaa Puntland haba ugu horeyso ragga taabacsan waa la wada ogyahay Siciidani waa la wada ogyahay صح magara marka iyagaaba arkaya khaladkii ugu horeeyay wuu ku dhacay laakiin team waynu siinaynaa ilaa 3 bilood hore haddaynu nahay team ka mucaaradka ah imika nabad iyo loo ما شاء الله هذه أدبا ما سنتها الله كحفظه الله كبركيه كرامة الله كسير برنامج هو قصو قيب آمين آمين إذا كان قوة أمانة إذا كان واحد يكون هاي إذا كان واحد يكون هاي ولالك أنا وحبة ما عدك شعب الصوماليات بقى وحكون هاي أنا وحبة ما أجن واحد ذلك يشوجة برنامج كسو قيب قاعدنا يدين هاي رنت هي حقيقة كهذا يا وايدك الله يدين بركيه وحول البعض أركتان نلصو حليلة نص الشارع وحول البعض أي قلتان سوق بيه إن شاء الله تعالى سأنا ذلك يدك ندفع عنه نمان كان يهود إن شاء الله والسلام عليكم عليك السلام سؤال هذا شعب الصوماليات برنامج كشارجرية ميل دير جارسيا وحلبان كشعب الصوماليات حلبان دعر نبض ينرل هداد يقول قانين نبض ينرل يا محافظ نما لان دير نما هذا وحنا هاي معارض كوجس الرأي وأفكار دير يكسر هرجة حسبك محلنا نار يا نحلي سوقرا أن حسن الشيخ محمود إسعسلنا سوقرا إن شاء الله تعالى ويلش يقبلها صوماليات وأنا السلام يا مير البودنية تعالى إذا كشوكتان وحلبان كشعب كصوماليات حلبان دعر نبض ينرل رنت الشيك هنبقين دل كان للدفاع ذا شعب كصوماليات دل كان للدفاع ذا برنامج كشارجرية ميل دير جارسيا إن شاء الله لقيستي وجودن بي كقيب قليل وجودن بي بان كسو قيب قليل لنا إن شاء الله تعالى السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماشي تكسو هذا يصير مقعد ولا النيروبي أنجو عبد الناصر بالله. واقرت عبد الناصر كسو له إذا عدى حسبك قبيلة جديد إن شاء الله. ولا الوان كله هاي رجعن توجد أسبير صينا وان كحوم هاي أرنت أيديان نيروبي أنا جوجو وعلى قد بالتجاه قالدي يوم حال يجري أنت حماد ولا سعد حسن الشيخ محمود مركاديات وعم باريننا إن شاء الله هو أنك قد بينا. ولا جود بيا شعب الصومالية اللي بعتها وحكس بوضم بيصومرين لحية 14 سنة وحيصومرين فوضى يليك داتا يلي بعت يلعى وانا كسو بدبادين تنا 4 سنة وحبا مرضي بيسو 4 سنة بيساقان جاري دورين إن شاء الله تعالى عقوبة أمة الصوماليات بانا كسو بيحي دونتا كنسر كان كل عدونا أما ودناها استاقي دونا بداس يقرع عام هادو سين ولا شعب كصومالية دين تأي هيستان حبتك مجي تبع هادو سين ولا هاي برنامج كان واد مظاهرات لا أساسه مقدشة ولا قلنا نيو نبض مجرته إلا تقالت ما يعطني ما فهم إن شاء الله تعالى كسو قيب قال دفاع دلكاغي دين هذا واحد دلك قبصدي waa Kenyaati in la dagaalamo u baahan waana la dagaalamayna aniga hadda 3 maalin guri ka baxan waan jiifaa waxaan ku jiifo karan maayo dukaankaygu wuu xiran yahay arinta way dhiiqo dhalinta meesha joogto kulli nidaam baa loo jiifaa marka meel u dhaqaaqa la garan lahayn ma faham ما شاء الله وانكم سلام يا ولالكي قوليسو غير الله كسيو السلام عليكم نار يا النحلي نار يا النحلي سوقرة نار يا النحلي سوقرة إن شاء الله تعالى السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عدك سواق صاري
codkaasi waa khasaare insha allahu tacaala waan idin salaamayaa dhammaan shacbiweynaha soomaaliyeed meel walba dunida dacaladeeda ka joogtaan waa xildhibaanka shacabka soomaaliyeed xildhibaan dacar nabad iyo nolol haddaa maalin joogto maalintu ha kuu wacnaato haddaa habeen joogtona habeenku ha kuu nacnaado ummadda soomaaliyeedna waxaan u baryayaa ilaahay subxaana wa tacaala inuu cadowgan naar iyo naxli ah ilaahay inuu ka qabto insha allah waan idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh